dhammaantiin waa mahadsantihiin. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. wabacdu horta aad idiima arko nalkaa fuul ah, indhaha ina taagtaagayso ma arkaysaan. baalkan camera waa aqaanaa. protocolian waxay ahayd inaa xildhibaanka soo hormarisaan isaa hadda siyaasadda ku jiro oo xamarna ka yimid mar dhow, laakiin waxaa is leedihiin ninkan waa nin oday oo hore oo waxoogaa saaxiibo khibra ah. kabirna waa iska jirtaayo. maxamed amiin allow waa wiilkaygii waay, siyaasaddan anaa ku soo daray oo ogyahay. jazaahu llahu khayr. waana nin dadaalo oo dowrkiisa ka soo baxay. walaalayaal, munaasabadan raggii igu horrey baa ka sheekeeyey. jaaliyadda hiiraan ka soo jeeda, khaasatan beesha degta hiiraan oo beelaha ugu muhiimsan ka mid ah ee beesha baadhacadda ayaa halkaan qabtay. dad badan waxay ugu canaantaa, waxay yidhahdeen war nin sheekh oo weyn aad aydo qaran oo xaggan oo maxaa qabiil ba hadda usoo noqotay. de qabiil adduunyadana isagaaba haysta soomaaliya sooma hadda. qabiil markii la yidhaahdo waxa weeyaan aniga nifaaqa ma aqaano, munaafiqnimada iyo beenta iyo kadibka iyo boorka laisku qariya anaa laa acrifu hada. meeshaan ka shaqaynaya waa ka shaqaynaya dacwada iyo ummadda soomaaliyeed walilaahi alxamdu waa i taqaanaa, waa ka soo shaqeeyey. welina waa u taaganahay hawshii qaranka. laakiin dadkii walaalaha ee kula dhashay, ibda biman tacuulu wey almacruuf. waxaa la yidhi alaqrabuuna awlaa bilmacruuf. wixii aan garanayna inaan dadkeena u gudbino waa shay caadi ah. wa andir cashiirataka alaqrabiina ayuu ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. oo arrinta annaga xambaarsannahay hamiga weyn ee soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka hiiraan inay jiraan. marka walaalayaal waa ka warqabtaan caalam alislaami walcarabi waxa ka jiro, ummaddaasaan ka mid nahay. dhib badan baa lagu hayaa, laiskagama sheekeynayo. arrinta soomaaliya markaan usoo dhaadhacno, ayada lafteeda waxa weeyaan waxay leedahay dhibaato badan oo meelo badan ka soo jeedo. marka u horeysa mushkiladda ummadda soomaaliyeed haysa waxa weeyaan waa faragelin shisheeye. waa in la fahmaa horta, faragelin shisheeyo oo caalamka iyo waddamada diriska ay ku hayaan. arrintaas khutuuradeed ay leedahay. ummadda soomaaliyeed waa in u baraarugto wey. tan labaad, maamul xumaa hayso iyo ummaddii soomaaliyeed la isku diray, kalsoonidii ka dhuntay, cadaaladdarro iyo dulmi uu jiro ayaa ka jira dalka. marka taasna waa dhib annaga aan isku hayno. haddii annaga aanan isdhibaynin oo walaalnimadii iyo wanaaggii wixii islaamka nagu ogaa iyo walaalnimada ay keenaysay haddaan ka soo bixi lahayn, waxaan filayaa inuusan cadow dibadda aana soo gaari lahayn. ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa midnimo, walaalnimo, cadaalad, nabadgelyada inay ka shaqayso, maamul wanaag inay la timaado. ummadda soomaaliyeed meel badan bay ku firirtay ayadoo walaalaha oo isku diina oo isku sharaf. yani dad ummad sidaasoo kaleta waa naadir caalamka ee wax kasta ay midaynayaan. maca dalika waxa waye dadka lagu tilmaamay inay ugu hooseeyaan waddamada soo korayo. marka taas waa in laga baxaa oo nin kasta meesha uu joogo uu maaragtay ka dadaala.